السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان عيدنا قرب كذلك الدول قلت أبو السبان هذه أدوار محبرية في رفض هذا يدي القرول وحنسي قارب سلام يا دامي يرى الخصوص بين سعيد ماله يقوى قادنا يا شغال غرام ما دام إنه كريت شغله مالت هذا الكينا وحب ضان دورة تابرك هي معناها كريت هي عيد ماله حقيقي وحنسي قارب سولوين يا ومانت حصول هذا عند فعد كوباد ليل سركال أيهن كوباد كبح يدل كوديس كوب قادنا أيه حديهم وسركال اللي بقى كوجار يدل كوديس إليه النسيب وعلاه وتاريخ وأنا كوه بريء وحين تاو سيدنا ومكيو الرئيسي قبل سوالي عنده تريد ذلك بدان نبي طبعا قبله ونفترض أصهري إن القاطع تعبر ليل سركال أو عظام الله وأنتِ لما يبغى لنا مشتنا هذه ألبوم بريء وسر وينيا إذا وين أروح كروا يسركيش يقول إن حبلها أيكم المرأة نقول جود يكثر أنا لروح حقلين وضوء وحكنا سر وينيا أرض شقق قرن وحنون كان ترى أول أنا سنتوبين حفلة دي لقصور ويتري يكمل يقول كذا غير قال ترى شقق ذا ومدة تومر كنا معتي أنت حنون كان تري وحنكوها بريئة أتكيس قاعدة ولا ذيان المدة دي صدق حبلون هاي أي شوين أنا وافقه كسر بحل هذا يجوا راعية البابا عاصماتك وحكموا غتائريهن أقوياء قادنا هي تابر عيدا يجرن آدي أبدان سولوينيا وحنكوها بريئة تابركيني هذا يلقى هاي وبيش مي مركز دماتو تكلم أول كذا اللي نحرده يجرن تاسر بسولوينيا أنت هرنا عمر كان ضعفه هل كان ما أنت أنتوا هو حرق عسكري وأنا من العسكر سلوم تابره كود ألف لها يسركال كودا هي شغال قرن وحرك وبسط النمان شغادي لو رجل عسكر نمض ما تعيد ما لو هي تريا شودي بوريس تريا أسلوبها كي حبها عسكري نمو تذكر يا بربك العسكر عسكرينimo عالميا iyo inagu markaa aynu sharaxnay waxa la isku raacay inuu askarnimadu tahay kelmadaas horta erayga askari marka hore waa af urdu oo waxa inoo kale markii ay baadar isticmaal ayuu nagu soo biiray malaha turkiga uu ka soo horeeyay inuu erayga lahaa haddaba askarnimo aynu qaadanaynaa oo ah fikrad ama mabda askarnimo sida ay ula mid tahay macallinnimo dhakhtarnimo looyarnimo waa shaqo shaqooyinkaasi dalka waxay u qabtaan iyo ummadda shaqooyin kala gaar ah oo dhammaan ummaddu u baahan tahay mid waliba wuxuu leeyahay muddaantiisa macnaha ay ku soo hortay caalamada iyo inagu askarnimadu waxa weeye askari marka hore wuxuu koobsadaa saddex arrimood oo tirada ta koobaad waa daljacayl askariinu haddaad qaatay dadka kaloo dhan waa inaad mutaan dadka ka jeceshaad ugu dhex jecel laba waa geesinimo iyo ciduna waa geesi dhakhtarku yahay maanta xanuunkaa jira wada baqayo dhakhtarku laabtuu dhigayaa qofkii cudurkaa fiirin uu bareeraya macallinku waa geesinimo oo jahal ula dagaalamaya oo dhibaato wuxuu marayaa inuu dadkiis ka saaro aqoon darrada laakiin askariga maxaa u dheer waa geesinimo iyo nafhurid wada socda askarigu geesinimada wuxuu ku darayaa naftiisa wuxuu u hurayaa inay inta kala badbaado marka waa tiirka labaad tiirka saddexaad waa xilgudasho sida u kala culus xilku oo xilgudasha maxay tahay askarigu ama janar ha ahaado ama dabla ha ahaado naftiisa wuxuu u rayaa saaxiibkiisa dagaalka uga jira inuu badbaadiyo askarnimada waxa weeye ka ku garab socda ee ciidanka gudaha ee horintaada ah inuu nin waliba kala badbaadi uu kan kala soo dhigaa soo dabka saddexdaa tiir ayuu askarigu ku soo ururayaa tiir uu taagan yahay
oo mid walba ay ka farcamayso bugaag badan iyo duruus badan iyo aqoon badan oo fara badan oo keenta oo aantii laydin barayo sarkaalo maxaa tahay askari haddana sarkaalnimo layli sarkaal maxaa loo leedayaa sarkaalo maxaa tahay shaqo qaran waa sarkaal waa aqoonyahan jaamacad u dhameeyey aqoonteenu buu leeyahay maxaa loo soo xireeyey ee xerada loo keenay iyana waa su-aal kale waa sarkaalnimo inaad labadiiba isu hayso aqoontii iyo sarkaalnimadii sarkaalkuna waxa weeye intii askariga lagu sheegay saddexdii tiir oo lagu daray go-aan qaadasho iyo hogaamin intii askariga marka loogu daro go-aan qaadasho iyo hogaamin ayuu sarkaal noqonaya haddaba maxaa lagu barataa kuliyaddan iyo kuliyadaha lamidkaa leyli sarkaalka waxaa la barayaa oo goob ka ah qodobo fara badan oo ay ka mid tahay casharada ay ka mid tahay iyo shaqo qaran oo socdo ah shaqada oo dhisana baraxay dhismaha jirka iyo maskaxda labadaba in laga dhiso laba in la baro xakamaynta naftiisa xaaladaha kala duwan bini aadmu xaalado kala duwan buu maraa wuu caroodaa wuu gaajoodaa wuu bukroodaa wuu farxaa abiyey wax weelaayo marmarka qaarkood waa kibraa waxa weeye waxaa lagu barayaa xakamaynta naftaada xaaladaha kala duwan si aad u hoggaamsan dadka marka ay jiraan xaaladaha kala duwan waxaa la barayaa oo durusta barteen ka mid akaabada barta lagu bartaa inaad u rogto dhaliishaada marka aad qaldanto qof kasta wuu qaldamaa bini aadmi baynu nahay ma jiro qof toosan kolkaa marka uu qaldamo ninka askariga ah waxaa loo tababaraa inuu qaladkiisa u rogo guul ereyada ka mid ah afafka askarta oo dhan adduunka waxaa kamid a diiba gurasho xeer dagaaleed retreatment oo ah khalad baa dhacay cadowgii waxbuu ah ama afrid u keenay waa inaad ku dadaashaa inaad qaladkaa u rogto saxiib iyo guul inaad ku gaadho waxaa kale oo halkan lagu tababaraa askarta saraakiisha halkan waxaa laga qaataa in guusha aad gaadha aanad ka qaadin faan iyo istustus ee guusha aad gaadhaa aada u aragta inay tahay waajib aada gudatay oo aanad u baahdan in laguga ammaano iyo inaad ku kibirto midna askarnimada waxaa laga kororsadaa dal iyo dad aqoon waayo dalka oo dhan baa u siman nooc dadka o dhanna way iska yimaadaan dalka oo dhan markaa dad iyo dad aqoonna waa iska koreen intaasoo dhan waxaa lagu tababarayaa inaad hubiso difaaca dalka iyo inaad ka guulaysto cadowkaa soo horjeeda intaa waxaa u dheh oo ciidamadana si gaar loogu tababaraa xaq dhowridda shacabka iyo noloshooda iyo hantidooda xallinta khilaafyada iyo dhisidda nabadda si loo gaadho horumar dhinac walba horumar dhaqaale la gaari maayo haddaana askarigu nabadda xasilin oo aanu dhisin oo aanu dhibada u taagin horumar guud la gaari maayo ugu dambayn halkan waxaa lagu bartaa higsiga berrinta somalilan tan maanta ka wanaagsan iyada oo aan la iloobeyn wixii shalay dhacay haddii aad raadiso uun berrinta oo wacan oo waxyaalaha qaarkood aada laacdo hirarka laacaad iska laacdo adoo iloobay wixii shalay ku soo maray iyo wixii dhacay khalad baad gelaysaa marka waxaa lagu tababaraa halkan qofku inuu horumarka noloshana higsado isla markaana uu og yahay wixii soo dhacay shalay uu labada isku xidho markaasuu noqon karaa sarkaal markaasuu noqon karaa askari markaasuu noqon karaa muwaadin dalkiisa iyo dadkiisa anfaca oo wax walba u qabta ilaa uu dhiig casku saxeexo horumarka dalkiisa shaqo qaran intaa aan soo sheegay waa laydin dulxaadiyaa dulxaadis baa ku barataa waayo waxaa laydiin tirinayaa shaqo qaran marka hore inaad dad aqoonna tihiin maskaxdoodu ballaaran tahay u baahan inaad fahamtaan ama aada guudmar ku samaysaan habdhaqanka iyo sida askartu iyo askarnimada loogu shaqeeyo oo aad ku tala gashaan marka laydiin baahdo dalkiina inaad la mid noqoto sarkaalkii aad kukalaaska ahaydeen ee isagu qaatay inuu noqdo militariga inaad la mid noqoto waxa kale oy ka faa'iido tahay
shaqo qaran oo adduunka oo dhan ma sameeya waynu ognahay oo dalkeenu baryaha dambe duruufaha jira dhaqaalaha awgeed qof waliba deegaankiisa ku nool ma jirto shaqooyin iyo warshado waaweyn oo dadka isku dhex gala ma jiro bulshada dhex gasha oo inta badan soo gaadha in yar mooyaan markaa markuu qofkii ardayga ahaa wiil iyo gabarba uu magaaladii uu ku dhashay ka galay elementariga ka dhameeyey sulka dhexe uu ku dhameeyey secondariga haddana uu jaamacaddii ku dhameeyey uu qof weyn yahay oo laga yaabo inuu reeriya carruur yeesho laga yaabo inaan deegaankiisii dhaafin waa dhibaato inteeda leeg markaa shaqo qaran muddada yar la isugu keenay waxaa kow ka ah inaad isdhex gashaan inaad isbarataan inaad fikirkiina iyo sidaa wuxuu wadi lahayd isla fahamtaan waayo maxaa la isu kiin barayaa maxaa la isu kiin darayaa haddii aan la yidhaahdo muddo dhow oo berrita ah waxaa noqonaysaan madaxdii dalkan waxaa noqonaysaan madaxweynihii iyo wasiiradii iyo dhakhaatiirtii iyo safiiradii iyo looyaradii iyo tujaartii iyo qaarkiin sanaadiri noqon laga yaaba iyo culimada waxaa noqonaysaan dadkii berita dalkan u talinayay markaa waxaa lagu dadaalayaa idinkoo is yaqaana oo hebel iyo hebel isu garanaya oo doodi kara oo dal hogaamin kara oo iswada yaqaana oo deegaan walba garanaya inaad berrinta noqotaan madaxdii dalka oo hubaana wixii nool inaad noqonaysaan berrinta da'yartiinani kuwa dalka hogaaminaya shalay unbay ahayd annaguba markii aynu odhan jireen madaxdii dalkan soo hogaaminaysay oo ugu dambeeyey maxamed xaajiraan xigaal oo aan garanayo dhowr lixdankiisaba prime minister uu noogu yimid iskuulka markuu noogu yimid da'yartii berrinta dalkan xukumaysa waa noqonaysay dhammaantay waxaa ninkii gaaraba waxaa kamid a dhammaan madaxweyneyaasha halka soo maray shalay bay dhalinyaro wada ahaay iyo intaa garanaysaan o dhan waxaa laydinka rabaa shaqo qaran lagadi sarkaan da'yarta oo dhan inaad isu diyaarisaan maskaxdiina ka ballaarisaan dhalinimada iyo duruufaha gaarka imka haysta ee laga yaabo dhaqaale iyo shaqo oo dalka baad ka jirto ogahay haddana qaar ka adag baa soo maray inaad isu diyaarisaan inaad madaxdii qaranka tihiin weliba shaqo qaran waxaa ku dadaaraya inay noqoto koorska yara gasheen mid dalka mustaqbalka anfaca ugu yaraan dad soo maray wax soo bartay marsa soo arkay og waxa dalka ka soo dhacay og waxa la higsanayo goobjoog u ahaa oo dhegaystay madaxda maanta wixii ay ku dardaarantay iyo waxay hayaan intaa waxaa la filayaa ciidanka booliska horta booliska waxaa balyanaya shaqooyin wanaagsan oo aad iyo aad u hawl badan ay dalka ka hayaan soomaalidu mahmaha bay sheegtay marka reerku guuro ee la dego ama geelu jira yahay geela xerada loo oodayo laba nin baa ooda garaaca mid wuu garaacaa midna ooda wuu soo guraa reerku ku ooda mahmaha baa halkaa ka soo baxdo waxaa la yidhi garaaciya gure guraa hawl badan ka ooda jiidaa hawl badan oo culays ku dhacaya wadaxda xaganaysa garaacaasa isbida laakiin ninka reerka oodamaanka ooda garaacay ayuu baa yeeshay horta waxaan idiin sheegaya buriisku waa jiidihii waa gurigii hawsha ku dhacda ciidamada kale kuma dhacdo 24 saacadood waa ciidan dagaal ku jira mar walba aroor garab habeen yacni hawsha waa ciidanka qura ee adoonsa war dagaalka meel mar qura joogsanay ciidanka waxaynu ku amriyeenaa hawsha culus ee ay u hayaan dalka khaasatan magaalooyinka waaweyn gudahooda oo ay ka haystaan dhibaato badan oo ah dadka u baahan wax walba waa ciriiri biyaha la isku leynayaa shaqada yar baa la isku leynayaa suuqa yara kaariyoonaha la isku leynayaa carruurtiiba aqalada guri iyo dhalinyarada meel ay ku ciyaarto male garamadooda ka wada dhisanay dariiqii waa wadatiin iyo dhagax carruurteennii inankii yaraa meel alli iyo meel uu ku jiqsado male dabeetana ama dhagaxu tuuraya ama isleynayaana buriisku bay sameynaya ciidanka buriiska waxaynu ku hambalyeynaa hawsha culus ee qaranku hayeen waana la gelinaa hawsha ah waxaanu sal doonaynaa in la helo fikrad ay ku kala dhistaan buriiska iyo dadku oo dadku ciidanka buriiska uuna dariiqaas ku haysan maayaana in la ballaariyo dalku meel ay ku ciyaaraan ganacsiga meel loo ballaariyo wadooyinka dhagaxa lagu soo ururiyo dadweynuhu inay ka feejinaadaan waxyaalo badan buu dadweynuhu ka caawin karaa buriiska si loo kala nasto aad iyo aad baan wax baryanayaa waayadan intan xanuunkan kale soo kordhay xataa jaadkii la joojiyey wacdanihi ay ka muujiyeen guusha ka sooyeen oo waa ku hambaryeynaa waxaan u dhaafayaa ciidanka qaranka horta dee maanta waxay nala joogaan boqorkii dagaalka ayay soo dhigeen oo maanta way salaameen taangigu waa boqorka dagaalka la yidhahdo marka ciidamada laga hadlaayo markuu taangista ninku yahay cid uga ka maydhaa
duuliyaha diyaaraddu ka baydha ka markabkooda waa ka baydha ka infantariga waa ka baydha boqorka dagaalka la baxeen waana yihiin waayo dagaalku dhan wuxuu kusoo raray cadow inaad jebiso goobta laysku haya inaad ka qabsato taangi uma qaban kara dhulka oo ciidanka infantariga la socdo infantariga la socon maayo haddaanu taangu jibaaxayn cadowga iyo caqabada u dhigay miina ha ahaato bohon ha ahaato dhisma ha ahaato isagaa u jeexa ciidanka waddada sidaa darteed waxaan ku amrayanaa maanta inaanu la kulannay qayb ka mid a boqorkii dagaalka iyo teknikadii oo socda dhammaantoodna waa amrayanaa ciidanka waxay u yihiin iyo qarankana horaa loo sheegay in ay yihiin ciidanka qaranku waxa dalka deyrka iyo mustameedka oo hayr daawaraysa anagoo ku amraynaya maanta halkan waxaan u yimid maadaama xanuunkan jira corona awgee aynaan u samayn karin dowlatus ciidan oo ciidamada midwalkiis ku dhagaaday waxaanu ogaanay inaanu u nimaadno oonu door bidnay inay joogaan ardaydii ku habboonayd in ay matalaan ciidamada ee soo koraysay hadday yihiin laylisalkaale shaqaraba iyo guto ka mida gutooyinka ciidanka oo qolada taangistaha iyo tiknikada ugu horeeyaan oo halku u diyaargaroobayay inay maraan sanadkan suuqyada magaalada oo aanay suurtoogeyn xanuunka awgii waxaan ku amriyayna boliisku dadaalka badan iyo tiknikada cusub ay soo kororsadeen ay usoo diyaargaroobeen nabadgelyadii xajintoodii ciidankooda quruxda badan iyagana waa ku amriyayna diyaargarowga dhammaanteen waan idin hambaryaynayaa waan idin ducaynaynaa waxay noo dardaarana daljacayl geesinimo nafurid leh iyo xilgudasho haddii ciidamada la yahay iyo qof kastoo muwaadinaba waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu